شباب ومليشياده qofkii soo dila hadda ma lees maqlaado yaa qoortayda haysta oo madaxiisa ama xiniisa soo laalaadina keena $5,000 xildhibaan maxamed cabduqaadir oo kamid ah xubnaha golaha shacabka Soomaaliya isla markaana ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa si adag uga hadlay xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyihii gobolkaas mudane Cali Jaate Cismaan xildhibaanka ayaa si weyn uga soo horjeestay xilka qaadista uu gudoomiyaha gobolka Hiiraan ku sameeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen maxamed cabduqaadir ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in arintan $2 milyan ay ku bixisay kooxda Al-Shabaab si meesha looga saaro Cali Jaate warqadii ugu qaalisaneed ee soo baxday qarniga 21aad laguna gatay inta ilaa iyo hadda aan ogahay $2 milyan ee ay argagixisadu bixisay si looga horwareejiyo gudoomiye Cali Jaate Cismaan ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri xildhibaanka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in horey ay kooxda lacag dhan $1 milyan madaxiisa u duldhigtay Cali Jaate Cismaan sida uu hadalka u dhigay Cali Jaate wuxuu noqday qofkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay oo ay dilkiisa argagixisadu ku bixisay qarash dhan $1 milyan markii ay u suuragali weysana ku bixisay $2 milyan xilka qaadistiisa ayuu sii raaciyay xildhibaan maxamed cabduqaadir dhanka kale carada dadweyne oo ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jaate Cismaan ayaa haatan ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana halkaasi ka socda bannaanbaxyo xooggan sidoo kale qaar badan oo kamid ah wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Beledweyne ayaa waxaa xirtay ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macawisley kuwaas oo si adag uga soo horjeestay ama ula dagaalamay kooxda Al-Shabaab talaabada xilka looga qaaday Cali Jaate Cismaan ayaa ah mid lama filaan ah maadaama uu kaalin xooggan oo muuqata ku lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo inta badan looga saaray gobolka Hiiraan dhawaan Cali Jaate ayaa sheegay in qorshaha cusub ee wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu ka gedisan yahay midkii koobaad ee la tijaabiyay kaasi oo ahaa kacdoonka shacabka Cali Jaate ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in qorshaha dagaalka uu uga harayo madaxda sare ee dalka maadaama laga leexday nidaamkii uu hore ugu guuleystay wajiga koobaad ee dagaalka Al-Shabaab ee ahaa kacdoon dadweyne isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir taqasul daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gobolka badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital